munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabeynayay qaadashada kaarka codbixiyayaasha oo muddo bilah ka socotay dhammaan tuulooyinka iyo deegaanada gobolkan saaxil. munaasabadda oo ay soo qabanqaabiyeen komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, xafladaas oo ay ka soo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenkii hore jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha Soomaaliland, asxaabta xisbiyada qaranka iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan, cuqaal, salaadiin iyo waxgarad. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, Cabdiqaadir Iimaan Warsame. xora oo xalaala oo nadiifa oo noqonaysa tii ugu horeysay caalamkan lagu galo doorasho. innaka ugu horeyna dhalinyar oo geeska Afrika ku yaala oo aan loo qoonsanayn oo haddana xadaaradda intaa leeg ama teknolojiga intaa leeg gaadhay ama u bareeray. annagu xaggaygana farxad bay noo tahay inay ku soo gabagabowdo nabad iyo caano. waa in lagu daydaa gobolka saaxil sida ay isugu abaabuleen oo runtii ku dayasho mudan. waxaan u soo jeedinaynaa guud ahaan dadka Soomaaliland ee weli aan isdiiwaan gelinin inay iyaguna abaabulka ay sameeyaan. waxa kale oo aan doonayay halkan inaan uga mahadceliyo dhammaan dadkii kale ee ka qayb qaatay. waxaanu ku faraxsanahay haddaan odhagu nahay komishankii heer qaran iyo heer degmo. waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanayay hawshaasi inoogu soo dhammaatay si wanaagsan. duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed oo halkaasi ka hadlay waxaa si weyn ugu mahadnaqeen komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. gobolka oo ballaaran, gobolka oo baaxad weyn leh, gobolka oo xeebo leh, buuro leh. ilaahay subxaanahu watacaala nimcaduuna siiyey wayna mar walba ugu mahadcelinaa. waxaa runtii aan halkan aad ugu mahadcelinayaa komishanka qaranka heer qaran iyo heer gobol iyo howlwadeennadii dhammaan ka shaqaynayey intii ay socotay diiwaangelintu. horta wax ilaahay loogu mahadiyo waxa ah diiwaangelintaas inuu ilaahay nabadgeliyo inoogu riday maanta aan soo gabagabaynay. annaka farxad bay noo tahay maamul ahaan, waana wax ilaahay loogu mahadnaqo nabadgelyada diiwaangelintaasi ay noogu dhacday. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha Soomaaliland Cali Maxamed Cilmi. meelaha noocaasa haddaynu ku xidhnaano waxa weeye 990 markii Soomaaliland goobaha codaynta intii ay ahaayeen bay weli yihiin, waxba laguma kordhin. waxa weeyaan tirada xilligaa la qaatay waxaan qabaa wax badan baa haddee bedelkeeda leeyahay u baahan udumooyo. waxaan leenahay ilaahay ku geleeya shaqada qabataan arrimaha noocaasa. waxaan jecelayaa hoos u eegtaan. ugu dambayntiina waxaa xafladaasi soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland. sababtoo ah diiwaangelin maxay tahay? diiwaangelin waxa weeye Afrika waa la isdilaa. waxaa loo gudbiyay kaarkan qaado oo xabadiis xidhigo kaarkan ku dooro cidda doon isku dooro. Cabdiqani Xasan Khalash, telefishinka madaxa bannaan ee Somaliland Space Channel, magaalada Berbera.